በአፋርና በሶማሌ ወንድም ህዝቦች መካከል ባለፉት ዓመታት ጀምሮ የነበረው ግጭት ዳላላ አስፈላጊ ውድመትና የሰው ህይወት መጥፋት dhacdadii shacabka Soomaalida iyo Cafarta ee sanooyinka u dambeysay socday kaasoo ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed taasi waxay caqabad ku noqotay geedigii higsiga iyo horumarka sayeshe wasiirada sare ee xukuumadda federaalka ayaa kulamo dhawaan ku diyaarisay magaalada Addis Ababa si looga gungaadho dhibaatada xalna loo helo taasina waxay ka soo saartay heshiis iyo go'aamo la isku raacay maadaama midda ugu horeysa ayaa ah in la joojiyo nafti dhimanaysay lana joojiyo isku dhaca ayay labada deegaan ku heshiiyeen sida uu yiri madaxweynaha deegaanka Soomaalida madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa soo kala sheegay in la isku afkartay in la joojiyo isku dhaca waxyaabaha keenaya inuu soo noqnoqdo khilaafkani ama uu abuurmo isku dhac dambe ayaa waxa la isku raacay in laga fogaado waxyaabaha keenaya isku dhac labaad marka xigtana laga shaqeeyo dadka soo barakacay in goobihii ay ka soo barakaceen lagu celiyo oo qoysaskii Soomaaliyeed ee ka soo barakacay magaalooyinka saddexdaana lagu celiyo guryahoodii qodobadaas iyo qodobo kale oo muhiim ah ayaan gaarnay si heshiiskan looga midho dhaliyana annaga way naga go'an tahay ka Soomaali ahaan saas daraadeed hadda waxaan u jahaysanay sidii dhibaatada xal looga gaari lahaa waxa kale oo intaas dheer in su'aalihii isku dhaca abuurayay jawaabtooda lagu raadiyo si sax ah oo nabad ah dastuurkana waafaqsan taasi oo ah rabitaanka shacabka deegaanka Soomaalida oo mar walba iyagu jeclaa inay nabad waxooda ku helaan isla markaana aan taageersanayn colaadan